noloshu waa iskuul dadku waa su'aalo maalmuhuna waa jawaabihii insaanka wanaagsan wuu dhoola cadeeyaa wuu qoslaa wuu cafiyaa in badan wuu iska jaahilsiiyaa waxa xanuunjiya hase ahaatee hal qofna ma garanayo waxa gudihiisa dhex ahaaday ma ahan daruuri inay inoo xaqiiqoobaan wax walba ee aan rabno balse kelimad baa mutaysatay in lagu celcelsho mar walba wayna inoo xaqiiqoobi rajooyinka inshaa allah kelimadaasi waa alxamdulillaah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi haddaad igu shukridaan waan idin ziyaadin ilaahay subxaanahu wa tacaala bay mahad u sugnaatay xaalad walba midkood baa xaakim su'aal weydiiyey wuxuu ku yidhi yaa u farxad badan dadka xaakimkii wuxuu ugu jawaabay dadka waxaa u farxad badan kan ka farxiya dadka kale noloshu waa buug taasi oo aynu ku qasbannahay inaynu ku noolaano safxooyinkeeda mid ka mid a mana inoo suurtagelayso inaan dooranno safxaddii aan doonno si aan ugu noolaano ahaw mid raalli ku ah wax walba laga yaabee safxaddan tan ku xigta inay kuu tahay mid ka qurux badan tanaad hadda ku jirto xiriiradu waa akhlaaq waxaad samaysa ayaana lagugu abaalmarin doonaa haddii aad caawiso ruux ilowsiisa murugo farxad gelisaana adigoo beddelna ka qaadan waxaa hubaala inay kuu imaanaysa maalintii lagaa abaalmarin lahaa wanaaggaasi aad samaysay ha ka welwelin beri adigu waxaa tahay addoon ee u daa rabbiga ha ku daalin naftaada welwelka badan ee aad mustaqbalkaaga ka qabto u daa arrinka midka u saaxiibka ah xalinta dhibaatooyinka allah haddii uu aqbalo ducadaada wuxuu kuu siyaadin iimaankaaga haddii ayse soo daahda aqbalidda ducadaada wuxuu kuu siyaadin samirka balse haddii uusan kaa aqbalin ducada wuxuu dib kuugu dhigi ducadaasi maalin aad u baahi badan tahay hadalku ma ahan isaga kan inaga caraysiiya balse qofka dhahay baa inaga caraysiiya ficilkuna ma ahan isaga kan ina saameeya ee qofka sameeyey baa inaga yaabiya sidee ayaad ku daahirin kartaa qalbigaada ogow allah ugama tegaya qalbigaada hal dhibic oo madow adigoo istighfaarsanaya allow noo dembi dhaaf oo inaga aqbal towbada aamiin aamiin walaalkayga mu'minka ahow sidee baad u murugoonaysaa allah oo kuu ballanqaaday janna ballaceeduna uu la eg yahay cirarka iyo dhulka taasi oo dhex ahaatay wax walboo naftu doonayso araggaaguna uu macaansanayo haddaba uma qalantid inaad murugootid ee samirka badi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh